Professor Ali Khalif Galleed iyo sidoo kale Professor Ahmed Ismail Samatar oo habeennimadii xalay ahayd dooda tabliiqiga ay ku qabteen magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa Professor Samatar oo mar ka hadlayay doodani ayaa waxa uu soo hadal qaaday isla markaana uu ka hadlay dilkii dhawaan loo geystay labadii sarkaal ee ka tirsanaa ciidanka qaranka Somaliland ee dhawaan lagu dilay deegaano kamid ah gobolka Sanaag isagoona dhacdadaasi professorku ku tilmaamay mid bulshada saameyn ku reebtay أنا واحد طبعا وضع سكان تركها يوم محمد كلفسن شغال الدولة اللون دراي عن تبوها هي إلا هو قارصده ولا كيلو تلك عين كاسين الديار كلا وكسي دوين ويقف دولة السعودة والشرعي يكون السعودة وعوش يصير قبصدي إن ضد عيبه أيضاً إلى الدلال بتلاقي كذا بيان وتلك ما روحهم بكمتها قالوا يا أيها تاوهم الرئيسان أي واحد اللوبي كلامها يفنتي رومرنا عينا إلى ما كان تاوه وحسوسته قال هي فوق اليوم ومركا لما قريستها ما هو وين لما قريستها اليوم فوتنوتس كواوين أي كم من نقول صار مرخاتية كم نقول $6 مركا واحد أنا كنت لديها تلك عين كاسي إنه يهي من دبدب وحلوغة قبطه dadkii waxa geystayna degdeg loo soo qabtay ee aanay wareegin horay loo soo martay dadka oo lagu laayay magaalada diyaarad buleelkeeda oo iska wareegtay arrintaas mar labaad waxaan dirus ku xidhaa once shy once beaten twice shy mar daga أنا أستغل مرة دقة الله هذا مرة دقة أنا أستغل مرة بقول لي ندي أنا كمان إنجاز أنا قولي أيام كويل أنا تعود أسهل كي مرة يدقق أو كمرية أو كويل وعن أنت أقدر يا تذكي كويسكي ولا سكان لقد بلي iyadana de wixii bini'aadam uu samayn karo ee kartida dawladeed iyo madaxgaari karto in la abaal mariyo wala caruur agoon jirta iyo dad maxaan ku rahay xaasas baa jira in iyagana degdeg loo abaal mariyo waa xaq la leeyahay Somalilandna inta saddexaad ku saabsan tahay aniga waxay la tahay wixii maanta ka dambeeya dawladeeda iyo dadkeedu in aanay u dulqaadan karin geesta kale professorka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay sheegayay in labada professor Ali Khalif Galleed iyo sidoo kale Professor Samatar aanay magaalada Boorama wax kulan ah aanay ku qaban karin oo in muddo buuxeedu soo gaaray ila yiriya shirkada qabani Ahmed Samatar ينت لصق عطانية لمجالات الدولة الميمنة وركاسوي سوقها أرتكلك لبي السلطنات الدستور كسومالي الآن الدستور كواحد قوانين واحد ولا أكثر يكون جبته هي الزمان أرتكلك لبي السلطنات وحقيقة إن قفك لسومالي الآن أو حق لي إنه الصحراء وأبابله شرعي وطن اسمه وحلا وحي ودونا قانون كوطن كقولنا وكوها freedom of public assembly and freedom of opinion إنه ليه قالوا لك واحد طبعا دستور كان إنه نوافق سنين إسلا لسكوت يلا السنين نعس ليا تقول ما وين نايت هاي مفنا إذا أنت مدي أروح تمي من خدت يلا يلا إذا تقول ما وين قال لك الدكان يعني أنت تبدأ كم مقام وين كم ذا هنا يسكت جين والسعادة يعني المقولة أي وعد كابين هذا الكاسي ماشي مكيب يدخل في كتب يلا قاعد كابين وأنا كعاون نقول صبر وده شيء كيسان وأنا أقبل من هالسنة وجمال عمر طبيع تلفزيون عالمي بدعاس 24 TV مقالة بورما